ogtiina maxkamad sare waxay soo saartay go'aan dastuuri ah. arrintaa waxaa dhacday dabadeed in dawladda federaalku ay si hoose ninkii xilka laga qaaday xiriir ula samaysatay shirar la gashay iyadoo ay sheegeen golihii sharci jadintu inaanu cidna matelin. arrintaa ayada ah waxay keentay in la iska indhatiro nidaamkii sharcigii iyo dastuurkii ay qorteen dowlad goboleed galmudug oo lagu wada shaqaynayay. arrintaasna waxaad moodaa in ay khaladka koowaad gashay dowladda federaalka oo ah dowladdeennii la rabay haddii ay doonayso in arrintaa ayada ah laga wada hadlo si ayna weydiiso intay isugu yeerto saddexdii golaba seebaa sharci ahaan dib loogu soo celin karaa. ma dhicin. sidaad og tihiin bisha soo socota 15keeda golaha baarlamaanku waxay ku dhawaaqeen in la qabanayo doorasho madaxweyne. waxaa cajiiba kenya shirow ku galay xeeb isagoon cidna matelin, dowladda dhexe shirow la galay isagoon cidna matelin, jabuuti hadda shirow kula jira isagoon cidna matelin. shirka jabuuti, dowladda jabuuti waa dowlad aan walaalo nahay, saaxiibo nahay. soomaaliya gaar ahaan galmudug xataa ku lahan abaal gaara oo waxaa joogo jabuuti ciidamada waxay wax ku leeyihiin nabad ilaalinta. marka annagu ma diidayno in ahlu sunno iyo galmudug heshiiyaan, waa arrin aad u wanaagsan, waana soo dhawaynaynaa. balse galmudug uma mateli karto cid aan mas-uuliyadba ka hayn shirkii. marka waxaad moodaa in arrintaas dowladda dhexe aanay marin waddadii laga doonayey ama ay ahayd inay marto. waxaan aada ugu dhaliilaynaa dowladda dhexe ee federaalka inay ka gaabisay wixii loogaga baahnaa, inay iska indhatirtay hay-adihii ka dhisnaa oo dowladdaasi ka koobneed. laba ka mid ah golihii sharci dejinta waa iska indhatirtay, maxkamaddii sare ee go-aankii kama dambaysta ahaa soo saarta waa iska indhatirtay, qofka xilka laga qaadan bay xiriir fara badan la yeelatay. taasina waxay abuuri kartaa inay sii baaba'do dowlad goboleedka galmudug. iska badaa inay la heshiiso ahlu sunne horta marka hore waxaa ka horreysay in dowladda dhexe ay aqoonsato in aanu xil haynin ninkaas oo xilka laga qaaday, sifa sharci ah looga qaaday aan looga qaadin ama wax shaksi aan loola jeedo. waxaa looga qaaday hab dastuuri ah. marka waxaan rabnaa dowladda dhexe inaan uga digno hal arrin. mar haddii aanay ka shaqaynayn inay isku keento ama ay maslaxa ka dhex samayso dowlad goboleedka dhexdiisa in ay daraf la safato waan uga digaynaa.